Wax ka ogow sirta akhriska wanaagsan ee darajooyinka sare lagu gaaro. Ma isweydiisay maalin sababta uu saaxiibka natiijooyinka sarsare u helo idinkoo isku fasal ah isku hal macalin oo wax idin dhigo? Muxuu kaaga sare maray? Haddaba halkan waxaan igu soo gudbinayaa 10 qodob oo akhriska wanaagsan saldhigga u ah. Qodobka koowaad, focuska xoog saaridda. Inaad shay xooga saarto oo dhohanaanta iska ilaaliso waa furaha akhriska wanaagsan. Maskaxda saafiga ah ee mashquulka kale ka maran ayaa ah tan loo baahan yahay. Waqtiga ugu habboon waa xilliga hore ee subaxii, waana waqti ay maskaxdaadu saafi tahay. Isku day salaada subax kadib inaad wax akhriso. Qodobka labaad, muhiimadda maadada u gaarka ah. Tusaale ahaan, haddii aad baranayso maado suuqgeyn ku saabsan, ku fakar sidii aad maadada hadhow ugu fulin lahayd shaqadaada oo aad ugu dabaqi lahayd noloshaada. Haddii aad maado taariikh ah baranayso, daawo filim documentary ah oo fahamka taariikhda ka taageeri kara. Xilligan aan joogno waa sahlan tahay inaad internetka wax ka hesho. Noqdo hadafkaaga waxbarasho. Markaad hadaf gaar ah daba socoto oo si dhab ah, waxa xaqiiq ah inaad maalin gaarayso. Intii aad wax u aqrin lahayd sabab imtixaan, naftaada u diyaari sidii in laga doonayo wixii aad fahamtay inaad dad kale u sharaxdo. Wadadaasi waxay kaa garab siin kartaa in fikirkaaga aad diyaariso, macluumaad wanaagsan aad hesho. Qodobka xiga, aqrinta ka hor diyaar garow samee. Samayso jadwal akhris ah oo qorshe maalinle ah ku salaysan, qayb kasta, farac kasta iyo maado kasta. Maxaa yeelay waqtigeenu inta badan waa mid furan oo aan jadwal lahayn. Wax badan ayaa naga halaabi kara. Qodobka xiga, maadooyinka adag ka bilow. Ka bilow maadooyinka adag si aad u dareento inaad talaabooyinka ugu adkaa aad u gudubtay. Inta kuu soo hartayna inaad dhamaystirto way ku fududaanaysaa. Lambarka xiga, meel go'an wax ku akhri. Meel u go'an oo aad wax ku akhriso samayso. Ka fogow goobaha cuntada, telefishinka iyo xitaa moobilkaaga. Waxaana si wanaagsan inaad sariirta ka fogaato, maxaa yeelay sariir korkeeda waxba laguma akhriyo. Qodobka xiga, ka fogow waxyaabaha ku mashquulin kara. Sanadooyinka dambe, moobilada smartiska waxay noqdeen waxa ugu badan ee waqtiga lumiya. Sidaa daraaddeed, waxaan kuu talinayaa inaad iska fogeyso xilliga wax akhriska iyo maalmaha imtixaanka. Qodobka kale, qaado cunooyin caafimaadka jimicsi samee. Ka fogow cunooyinka baruurta ku badan tahay xilliga imtixaanka. Inta badan caajis ayaa laga qaadaa. Qofku nasasho ayuu u baahnaadaa. Isboortiska samee ugu yaraan 30 daqiiqo maalintii. Arrintaas waxay kaa garab siinaysaa inaad si wanaagsan wax u barato. Qodobka ugu dambeeya, isticmaal ereyada dhiirigelinta ah. Haddii aad cid kale dhiirigelinta ka weydo, naftaada adiga ku abaalmari waxyaabaha wanaagsan ee aad gaarto. Gabayada iyo heesyada waxbarasho ee dhiirigelinta ah sida yaraanta wax ku barta weynaanta waad ku arkaysaa. Halkaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijkeeni. Fadlan subscribe saar channelkeena.